السلام عليكم عقل بدنيدو ما لسك دحلا mise waa mid la kasbado hadii aabahaygu uu yahay qof dhaxdhaxaad ah ama uu yahay aqli badan ma noqon kara aniga qof aad u aqli badan mise arinku dhaxal shaqo kuma lahanba tusaale ahaan hadii aan ka soo jeedo laba waalid aqli ahaan hooseeyo intay la eg tahay fursad aan haysto inaan noqdo qof aqli badan inta aan mawduucan ku guda jirno waxaan kula wadaagi doonaa wadooyin la tijaabiyay oo la ogaaday natiijooyinkooda aqliga bini'aadamkana kor u qaada maanta waxaan kula wadaagi doonaa mawduuc ay wax badan isweydiiyeen culimada cilmi baarayaashu oo ah aqli badnida ma lagu dhashaa mise waa mid la kasbado marka koowaad dhinaca madow marka laga hadlaayo inta badan waxay arinkan reer galbeedka baaritaan ku sameeyeen marka koowaad dhinaca madow marka laga eego inta badan baaritaan ku sameeyeen tusaale ahaan maxay Jarmalku u horumarsan yihiin haddaba waa la kala aqli badan yahay qof lagu magacaabo Taylor Dratzin waa siyaasi Jarmal ah waxa uu qoray buug dhaliyay muran badan oo ciwaankiisu yahay suulitaanka Jarmalka waxa uuna ula jeedaa shucuurta waxa uu leeyahay way ka hooseeyaan darajooyinka waxbarashada kuwa Jarmalka laakiin hadalka ninkani sida waaqac ah uu ka fog yahay waxa jira kumanaan muhaajiriin ah oo dhinac waliba uga sareeya kuwa cadaanka ah maadaama ay jiraan dad badan oo cadaan ah nolosha ka dhacay oo ay yihiin kuwa darbajiif ah inta aanan mawduuca u gudagalin aan qeexno aqli badnida waxa jira qaabab badan oo loo qeexi karo laakiin aan soo qaadano qaabkan aqli badnidu waa lahaanshaha qof awooda xalitaanka dhibaato jirto iyo inuu qorsheeyo sheeyaal kala duwan iyo lahaanshaha faham degdeg ah hawl socdana inuu qiyaaso iyo waliba falanqaynta afkaaro kala duwan waxa sidaas lagu qeexi karaa aqli badnida waxa muhiim ah inaan ogaano inaysan aqli badnidu kaliya ku akayn cilmi iyo barashada shay ra'yi ayaa leh aqli badnidu waa ka dhaxlaa oo qofka waalidkiisa ayuu ka dhaxlaa tusaale ahaan hadii la dhaho qofkani wuu aqli badan yahay oo ay tahay mid uu kasbaday halka 50% uu ka keensaday dhaxalka waalidkiisa ama dhinaca waalidiintiisa laakiin waxa jiro ra'yiga ugu macquulsan oo dhahayaba arinku dhaxal shaqo kuma lahan ee waa la kasbadaa aqli badnidu ama waa la bartaa qof kasta waxa uu haystaa fursad uu ku kasban karo aqligiisa kaliya waxa ka xiga inuu dadaal bixiyo arinkuna uu rabitaankiisu ku yimaado inuu kororsado aqligiisa cilmi baarayaasha waxay tusaale ahaan u soo qaataan cilmi baaris lagu sameeyay dad mataana ah markii ay dhasheen la kala qaaday oo midba meel loo kaxeeyay laakiin muddo kadib mid kamid ah uu noqday mid aad u aqli badan halka midka kalena ilaa heer uu hooseeyo aqli ahaan taas oo ah in midka aqliga badan uu helayba fursad uu ku siyaadinayo aqligiisa iyo aqoontiisa in uu helayba ninkaasi fursad uu ku siyaadin karo aqligiisa iyo aqoontiisa garaadkiisa oo ah bay'ad uu ku hormaro garaadkiisa nin lagu magacaabo Howard Gardner waa nin cilmi baare nafsi Mareykan ah oo lagu magacaabo inuu yahayba aabaha aragtida leh aqli badnida kala duwan waana macallin sare oo kamid ah jaamacadda Harvard waqti badanna galiyay baaritaanka la xiriira arinkani waxa uu leeyahay ninkan qof kasta oo bini'aadam ah waxa uu awood u leeyahay inuu kor u qaado aqligiisa garaadkiisaba taas oo micnaheedu tahay inuusan arinku wax dhaxal ah shaqo ku lahayn Gardner waxa uu leeyahay aqli badni badan oo kala duwan waxa uu leeyahay aqli badni badan oo kala duwan waana mabda oo isaga uu ku socdo kaas oo ku sheegaya jiritaanka aqli badni badan oo kala duwan oo bini'aadamku ay u qaybsan tahayba aqli badnidooda qof waliba inuu meel ku aqli badan yahay oo ay tahay muhiimada inaysan dhaxal ahayn oo qof kastaba meel uu ka aqli badan yahay oo uu meel ku fiican yahay tusaale xoojinaya arinka Master Gardner oo sheegayaba aqliga kala duwan ee tusaale ardayda fadhiisata safka hore waxa lagu tilmaamay inay yihiin kuwa ugu fiican ee kalaaska halka kuwa gadaal fadhiisana lagu tilmaamo inay yihiin kuwa ugu buuqa badan ugu dhibka badan fasalka taas oo cadeynaysa inay tahay aqli badnida inay kala duwan tahay tusaale ahaan kuwa safka hore fadhiista inta badan markii la soo jeediyo araayo ama fikro kala duwan kama qayb qaataan inay wax soo jeediyaan halka kuwa gadaal fadhiista ugu buuqa badan lagu tilmaamo galaaska amaba ruuxda nool ee galaaska kaas oo ay tahayba inta badan ay soo jeediyaan waxyaabo badan oo galaaska looga baahan yahay in haday noqoto in xogaamin loo noqdo ama siyaasiyiinta inta badan waxay ka soo baxaan kuwa safka gadaal ay fadhiistaan ee galaaska taas oo micnaheedu tahayba in qof waliba uu meel ku aqli badan yahay oo kuwii safka hore fadhiisanaya oo lagu tilmaamayo kuwa ugu aqli badan inay noqdaanba kuwa la hogaamiyo oo ay noqdaan kuwa ugu buuqa badnaa ee galaaska
gadaal fadhiisi jireen inay noqdaan kuwa ay hogaamiyaan kuwii lagu tilmaamay inay u fiican yihiin. sidoo kale nin lagu magacaabo Dr. Andros oo wax ka dhiga jaamacadda California baaritaan 10 sano qaatay uu ku sheegayba qof waliba inuu noqon karo qof aqli badan oo haddii uu juhdi isgeliyo oo wax isbaro wax akhris badan sameeyo inuu ugu dambeyn uu noqon karo qof aqli badan. Thomas Edison oo ninkii soo saaray nalka waxa lagu tilmaamaa inuu yahayba dadka ugu aqliga badan. ninkan waxa uu sameeyay boqolaal tijaabo oo ugu dambeyntiina uu ku guuleystay hadafkiisu ahaa inuu soo saaro nalkii, taas oo cadeen u in wixii waqti badan la geliyo oo lagu dadaalo oo juhdi badan la geliyo in ugu dambeyntii mari dhal lagu gaaro. sidoo kale inay tahayba in qofka caafimaadkiisa uu ku dadaalo oo sidoo caafimaadkiisa ku ziyaadin lahaa oo gym iyo sports iyo waqti badan uu isgeliyo. Soomaalidana waxa ay tiraahdaa aqliga saliimka waxa uu ku jiraa jir caafimaad qaba. Saadaradeed waa inaad ku dadaashaa caafimaadkaada iyo jirkaada inuu caafimaad qabo. Mowduucani koowaad faham podcast oo ciwaankiisu yahay aqli badnidu ma u dhalashaa mise waa mid la kasbado.